shirkan oo socday muddo hal maalin ah ayaa diiradda lagu saaray dejinta qorshaha horumarinta iyo xasilinta dalka ee 3 sano ee soo socota. Haddaba shirkan ayaa markii ugu horeysay oo la qabanayo iyadoo ay martigelisay dowlad goboleedka Puntland ayna taageerayso safaaradda Norway. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo mas'uuliyiin ka mid ah safaaradda Norway ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta Puntland Cabdiweli Maxamed Xirsi ayaa madaxda dowladda dhexe ka codsaday inay kala shaqeeyaan horumarinta kaabayaasha dhaqaale. ka Puntland ahaan anagu waxaan doonaynaa in nala hormariyo oo kaabayaasha iyada dhaqaalaha in waxaan u baahanahay haday tahay wadooyin haday tahay ceelal haday tahay ifin ama nuurin haday tahay kalluumaysato ama dadka dhaqaalihiisa kor loo soo qaado haday tahay beero haday tahay dadka abaaruhu saameeyeen dhibaatooyin saameeyeen in dib loogu sameeyo dib u dhaqaaleyn. inta kadib madaxa safaaradda Norway ee Soomaaliya Master Hookin ayaa bogaadiyay qabsoomidda iyo hirgalka barnaamijkan isagoo inta ku daray inay sii wadi doonaan taageerada iyo garab istaagga bulshada Soomaaliyeed. We have supported stabilization programs in Somalia since 2013. So this is the 10th year that Norway is supporting stabilization programs in Somalia. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Calasow ayaa tilmaamay sida la isu waafajin karo qorshayaashan isku dhafka ah ee xasilinta iyo horumarka dalka kaas oo ay dejintiisu ka bilaabanayso sanadan 2022 ilaa 2025. annaga ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan waxaan maaragtay maande yahay waajibaadkeena shaqo xasilintii goobihii jilicsanaa ee laga xoreeyay qolyooyinka al-shabaabka iyo sidii loo gaarsiin lahaa service-kay u baahnaayeen si ay u noqoto bulshadii bulsho wixii shalay ay ku nooleed wax ka bedelan aragtay dowladnimadana maaragtay soo dhaweynayso. Awil Yusuf Ciise telefishinka Sahalkii. ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga. haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda. garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna 4 gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank. haddii aad safar tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya Going From oo u taagan magaalada aad ka tagaysid. taabo Going To oo u taagan magaalada aad tagaysid. taariikhda aad baxayso. dooro shirkadda aad ku safraysid. ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. geli magacaaga oo saddexan. taabo lacag bixinta. sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.